Yeah. Yeah. What? Yeah. maanta waxaan review ka bixin doonaa mid kamid ah mobileski ugu hadalhaynta badnaa bilihii ugu dambeeyay mobilkan mobilka la yaqaano Galaxy A21s. السلام عليكم دمان معامش مراسل.com kusoo dhawaada barnaamijkeeni weeglaha ee Muraso Technology Review ka ugu horeysa ee soo iibsata mobilkan la yaqaano A21s ayaa waxaad ugu tagi doontaa kartoonka wax uu noqon doona waa mobilkii kadib ayaa waxa ku jira kartoonka isna ugu tagi doontaa wuxuu noqon doona waa buugii mobilka la socday waxa soo kale kugu jira waa charger kaas oo ah mid fast charger ah kaas oo si degdeg ah ku charge gareyn doona mobilka waxa kale ku jiri doona waxa noqon doona waa headphones ka iyaguna ku jiri doona waxa soo kale ku jiri doona dirtii sim card ka lagu geliyay mobilkan loo yaqaano A21s ayaa wuxuu soo baxay bishii June ee sanadkan 2020 mobilkan ayaa wuxuu kamid yahay mobilka markaan eegno xagga culayska amba gramkiisa mobileskan aadkana u cuslayn soo kale aadkana u si fududayn iyadoo lagu qiyaaso gramkiisa ilaa 192 gram taasoo macnaheedu yahay in uu yahay mobile aad si fudud gacanta ugu qaadan karto mobilkan ayaa hadii aynu eegno displaygiisan ayaa wuxuu sameeyay yahay nooca la yaqaano Infinity O displaygaas oo ku saamaxaya hadhow markaad wax ku eegayso amba aad ku daawanaysaba in si fiican uu kugu wada baahiyo yani muuqaalkii ama sawirkii uu kugu wada baahiyo mobile code iyadoo u saamaxayso displaygiisu noocan uu sameeyay yahay hadaynu u nimaadno cabirka guud ee shaashada mobilkan ayaa waxa lagu qiyaasay in cabirkiisu gaadhsan yahay 6.5 inch adigoo hadhow toole ay si fudud kugu filnaan doonto markaad ku daawanayso muuqaalada amba sawiraanta iyo waxyaabaha ku eegayso hadaynu u nimaadno xagga dambe ee mobilkan markaad iibsato waxa si fiican ku sajin doona wuxuu noqon doonaa waa midabka oo ay midabada mobilkan ee xagga dambe wuxuu ka sameeyay waa midabo isku jira sida qaansada oo kale imika midabka gacanta ku hayo midabka loo yaqaan bluega hadhow hadad iibsato waxaad heli doontaa isagoo cadaan ah amba casaan ah amba madow ah soo kale xagga dambe ayaa waxa ku leeyahay waa fingerprint sensorkii isagoo waliba ah mid si dhaqso ah uga furmi doona markaad isticmaalayso waxa soo kale xagga dambe ku leeyahay waa 4 kameradood amba waxa uu kamid yahay mobileska la yaqaano amba mobileska leh 4 kameradood wanu soo noqon doona kamarada iyada oo dib aan ka sharixi doona laakiin aynu sii wadno bal buttoniskan kale amba buttonada kale ee uu leeyahay mobilka soo kale xaggan waxa uu ku leeyahay waa buttonkii laga shidayay marna laga baqtiinayay volume-kii ayuu xaggan ku leeyahay waxa sidoo kale dhinacyada uu ku leeyahay waa speaker-kii oo ah speaker muxuu ahaay aad u fiican marka la eego xagga codka oo kale waxa soo kale xaggan ku leeyahay waa charger-kii oo noociisa nooca la yaqaan Type-C-ga xagga waxa ku yaala waa headphone sport-kii amba godkii ay garayeen earphone-adu hadii aynu u nimaadno waliba screen-ka mobilkan ayaan isagu waxaanu ka samaysnay technology aynu hore u soo aragnay mobileska aynu hore u soo review garaynay sida mobilka la yaqaano A71 amba A51 kale iyagu waxay ka samaysnaayeen waa maadada loo yaqaano Super AMOLED display laakiin mobilkan ayaan isagu waxaanu ka samaysnay technology-da iyadoo shirkadda Samsung ay ku soo samaysay displayga ay doonaysa imika inay u guuraan oo ay u bedelaan mobileskooda cusub iyadoo ah loo yaqaano TFT touch screen soo kale mobilkan ayaa isagana waxa ku jira chipset cusub oo la yaqaano Exynos 850 isagoo leh si fudud kugu qaban doona shaqooyinka fududeynaya mobilkaaga hadaynu u nimaadno maskaxda mobilkan ayaa waxa uu ku yimaadaa mar uu yahay 32GB sidoo kale RAM-kiisuna uu yahay 3GB iyo mar uu yahay 64GB RAM-kiisuna uu yahay 4GB waxa soo kale heli kartaa mar uu yahay 64GB laakiin uu leeyahay RAM ah 6GB RAM 64GB marka uu yahay roomka mobilku ayaa waxa imika lagu qiyaasaa inuu yahay yani roomka kaliya ee ku filnaan kara qofka amba u qaban karaba shaqooyinka uu si caadi ah ugu baahan yahay shayga ugu cajiibsan amba oran karno wuxuu kamid yahay waxyaabaha cajaa'ib kale ee wata mobilkan ayaa waxa kamid ah waa cabirka bayteriga mobilkan ayaa waxa uu ka cabir sareeyaa mobiles marka la eego xagga bayteriga mobiles ka qaalisan ba xagga qiimaha mobilka la yaqaano A71 oo kale A51 oo kale cabirka bayteriga mobilkan ayaa waxa uu dhan yahay waa 5000 mAh iyadoo macnaheedu taa waxa weeye waxaad isticmaali kartaa muddo aad u fara badan ku dhawaad waxa uu ku hayn karaa week hadii aad u isticmaasho si caadi ah iyadoo aan dabka
marnaba aanad gelin. haddayna u nimaadno kamarada mobilkan hadaynu wax ka sheegno, mobilkan ayaa sayna hore soo sheegnay waxa uu ka mid yahay mobileska leh 4 kamaradood. kamarada ugu horeysa ee main kamarada ayaa cabirkeedu waxa uu yahay 8 megapixel. soo kale kamarada labaad ee loo yaqaano ultra wide-ka ayadana cabirkeedu waxa uu yahay 8 megapixel. kamarada kale iyadana ku qaban waxa loo yaqaano macro-ga ayadana waxa cabirkeedu yahay 2 megapixel iyo waxa uu soo kale leeyahay 2 megapixel oo loo yaqaano depth sensor. kamaradan hore ee loo yaqaano selfie kamarada ayadana cabirkeedu waxa uu yahay 13 megapixel. waxay soo kala wadataa 2.2 oo ah lenska kamaradan hore ee selfie-da. muddadii aan ku guda jiray tijaabada mobilkan haday noqoto xagga kamarada ayaa waxaan ku qaaday sawiradan aad arkayso anigoo waliba u tijaabiyay 4 kamarood mid. waxaan ku dhawaaday amba waxa mobilkan la barbar dhigi karaa marka noqoto dhinaca kamarada oo kale mobileski aynu hore soo review garanay mobilka loo yaqaano A51ka amba A71ka isagoo si fiican wali mobilkani u kala saaraya coloriska markaad ku qaadayso sawiranta. mobilkan cajiibka ee loo yaqaano A21s ayaa waxaad ku iibsan kartaa hadaad u baahan tahay mobile ku qabanaya muddo badan oo ku haanaya dabkiisu kamaradiisu ay aad u fiican tahay. soo kale muxuu ahaay si fiican kugu socodsiinaya abiskaas leedahay abiska xooga badan ee rabto inaad ku isticmaasho mobilkan ayaa waxaan ku oran lahaa waxaad iibsataa mobilkan adigoo waliba ku iibsan kara qiimo ka hooseeya $200.